dowladdaas calanka u waday calanka Soomaaliya sugo. sida aad dhawaan maqasheen fanaanka Cabdi Dhaanto ayaa lagu xiray magaalada Muqdisho haddaba maxay tahay sababta ka dambeeyay in fanaanka Cabdi Dhaanto oo ah fanaan inta badan bulshadu aad u wada garanayso haatan lagu xiray magaalada Muqdisho sida aan wada ogsoonahay waxaa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsaday fanaan u shaqeeya dowladda kaas oo lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu ku jiraa xabsiga dawladda hase yeeshee Abshir Gaarana oo wali aan maxkamad la keenin ayaa waxa xabsiga looga dabageeyay fanaanka Cabdi Dhaanto haddaba arrintaasi faahfaahin ku aadan ayaa rabnaa inaan halkaan idin kula wadaagno iyo sababaha ka dambeeya xariga Cabdi Dhaanto iyo sidoo kale qaybaha dambe oo aan ku soo bandhigi doono fanaanka Abshir Gaarana oo hooyadiis ay ka dhawaajida arrimo cajiib ah iyadoo soo duubta muuqaal ay uga hadlayso wiilkeeda xaaladiisa arrimo badan oo muhiim ah tilmaamtay haddaba daawada haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyay ee channelkeena fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan sida aad ku maqasheen wararka degdega ah fanaanka Cabdi Dhaanto ayaa waxa lagu xiray magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay hase yeeshee fanaanka Cabdi Dhaanto ayaan ahayn fanaankii ugu horreeyay ee lagu xiray magaalada Muqdisho waxaan dhawaan isbuucii la soo dhaafay Abshir Gaarana lagu xiray magaalada Muqdisho hase yeeshee waxaan rabnaa sababihii ka dambeeyay inaan halkan faahfaahin idinkugu soo bandhigno sida aan wada ogsoonahay fanaanka Cabdi Dhaanto ayaa waxa uu Facebook ku leeyahay page weyn wuxuuna inta badan page-kaas soo dhigaa warbixino bariyihii u dambeeyay ayaa waxa lagu dhaliilay Cabdi Dhaanto inuu si qaldan u adeegsanayo waxa uuna inta badan soo bandhigaya ayaa lagu eedeeyay warar qaldan kuwaas oo aan munaasib ahayn hase yeeshee wararkiisii ayaa caawa waxay u dhaadhiciyeen jeelka waxaana kamid ah arrinta iminka xabsiga uu galay kadib markii ay isqabteen wiil ka shaqeeya maxkamadda gobolka Banaadir oo uu ku tilmaamay inuu yahay wiil Al-Shabaab ah haddaba Cabdi Dhaanto ayaa waxa uu soo qoray fariin sida tan u dhacaysay isagoo ku dhaleeceynayo wiil Soomaaliyeed hase yeeshee sidoo Cabdi Dhaanto ku andacoonayo wiilkan oo horay uga soo caayay social media ayaa Cabdi Dhaanto waxa uu jawaabay si aan ahayn arrin kaftan ah oo noqon karto in Cabdi Dhaanto loo maxkamadeyn karo Cabdi Dhaanto ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray isagoo soo qaatay sawirka wiilkan waxa uu leeyahay sida tan xubin kamid ah ururka Al-Shabaab waxa ku raad jooga ciidamada nabad sugidda madaxiisa waxa saaran lacag badan qofkii arka hala soo xiriiraniso haddaba nisa ayaa ah hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyadoo aan shakhsigan lacag dushiisa dul dhigin haddii qofi oo iska baahiyo uu yiraahdo qofkan waa qof argagaxiso ah waxay noqonaysaa marka koobaad inuu qaladka gala hay'adda nabad sugidda marka labaad waxay noqonaysaa in qofkan shakhsiga ah oo sawirkiisa adeegsaday kuna xadgudbay shakhsiyadiisa uu tagi karo maxkamad maadaama waddanku uu sharci leeyahay waxaana laga dacweyn karaa maxkamadaha waddanka iyadoo uu ku soo eegi karo qofkaasi kiis ah inuu ku xadgudbay shakhsiyadiisa dhanka kale fanaanka Cabdi Dhaanto ayaa marar badan wuxuu si qaldan uga hadlay arrinta Abshir Gaarane waxa uuna barihii u dambeeyay ku difaacay Abshir Gaarane inuusan ka tirsanin ururka Al-Shabaab ee la masabitay dad badan oo arrinkaasi ku raacsan waa ay jireen hase yeeshee inta badan dadku waxa ay leeyihiin ninkan oo aan weli la maxkamadeyn waxa adiga ka hadashiinaya maxay yihiin maxaad isku ogtahay dad badan ayaa arrintaas iyana u qorayay barta commentigiisa waxaana suurtagal ah in Cabdi Dhaanto iyo sidoo kale Abshir Gaarane uu xiriir ka dhaxeeyay walow Cabdi Dhaanto oo markii la xiray Abshir Gaarane bartiisa Facebook live ka soo galay uu tilmaamay inaysan jirin isaga iyo Abshir Gaarane wax xiriir ah oo ka dhaxeeyay marka la yiraahdo dhanka fanka waxa uu soo hadal qaaday arrimo la yaab leh dhanka kale fanaanka Cabdi Dhaanto ayaa waxa uu ku andacoonayaa in wiilkani uu ka soo caayay bartiisa Facebook ah waxa uu leeyahay suurtagal ma ahan in anigana maanta la igu xiraa haddii aan u jawaabay inkastoo hadallada ugu jawaabay aysan munaasib ahayn hase yeeshee Cabdi Dhaanto ayaa wiilkani horay ugu soo digay waxa uu bartiisa ku soo qoray war u muuqday cagtii joogsan weyda marba ceeb la kulantaa uu kala jeeday Cabdi Dhaanto haataadkiisa ayaa batay laakiin ceeb ayuu la kulmi doonaa hase yeeshee wiilkan lagu magacaabo Xasan Maalin ayaa waxa ka muuqata hadalkiisa inuu horay u sii ogaa xariga Cabdi Dhaanto maadaama uu isagu balansaday kadibna markii fanaanka Cabdi Dhaanto uu gafay uu ku sameeyay arrin ah inuu xabsi ka dacweeyay ama maxkamadda tagay kadibna uu sidaasi Cabdi Dhaanto maanta jeelka ugu dhaxuyanayo waxaana lagu xiray fanaanka Cabdi Dhaanto saldhigga degmada Hodan maadaama fanaanka Cabdi Dhaanto uu degan yahay degmada Hodan oo ka tirsan degmooyinka magaalada Muqdisho hase yeeshee xaaladda Cabdi Dhaanto ayaa ilaa ay hadda laga soo waramin sidoo kale waxa uu soo dhigay Facebook-giisa qoraal isagoo sheegaya inuu xabsiga ku dhex jiro waxa uu yiri waxaan hadda joogaa saldhigga degmada Hodan waxayna la xiriirtaa dacwad uu gudbiyay nin Facebook iga soo caayay oo aan u jawaabay sida la ii sheegay waxa uu ka shaqeeyaa maxkamadda
arrintan ayaana Cabdi Dhaanto uu sheegay inta aan wali xabsiga lagu xirin oo xorriyadda aan laga qaadin hase yeeshee waxa ilaa aan ku kalsoonahay ay noo xaqiijiyeen in fanaanku iminka xabsiga uu hoyanayo arrintaas ayaa iyana waxa ay noqon doontaa mid kaleeto oo muran kala dhali doonto maadaama fanaaniinta barihii u dambeeyay xorriyadda laga qaadayay Abshir Gaarane hore ayaa loo xiray oo shabaab lagu eedeeyay Cabdi Dhaanto maanta xabsiga ayuu kaga daba tagay waxaana suurtagal ah in saacadaha socda fanaaniin kale sidaas oo kale lagu sameeyo hase yeeshee wixii soo gordho halkan ayaan kula socodsiin doonaa oo ku saabsan arrimaha xariga fanaanka iyo waxyaalaha la xiriiro oo idil hase yeeshee markan waxaan rabaa inaan u guda galo sidoo kale qodobka kale idin balamiyo oo ahay in hooyada Abshir Gaarane ay markii ugu horreeyay ka soo hadashay xariga wiilkeeda waxa ayna tilmaamtay in wiilkeedu uusan ka tirsanin ururka Al-Shabaab Abshir Gaarane sida la ogsoon yahay wuxuu ahaa fanaan u shaqeeya dawladda walow uu isagoo xabsiga ku jira uu soo duuba muuqaal isagoo qiranaya inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab balse hooyadii ayaa waxa ay tilmaamtay in wiilkeeda la jir dilay waxa ayna sheegtay in wiilkeeda lagu qasbay inuu sharaftiisa u gafo sidoo kale waxa ay baaq u dirtay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo u sheegtay in wiilkeedu uu watay calanka Soomaaliyeed had iyo jeer uu heesay dawladda waxa ay sheegtay Farmaajo markii la doortay inuu ahaa dadkii u ololeynayay sidoo kale sida aan wada ogsoonahay wiilkan Abshir Gaarane iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa beel ahaan isku hayb ah laakiin arrintu halka waa ay ka weyn tahay oo waxay taagan tahay qaran waxa uu Abshir Gaarane wajihi doona maxkamad haddii arrintan ku cadaatana si rasmi ah ayaa loo shaacin doonaa iyadoo la sababeyn doono qodobada iyo sidoo kale dambiyada uu galay xilligii uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sidaan wada ogsoonahay ilka casoo macallin ah ayaa isna hore loo shaaciyay hase yeeshee daawadayaal yaana wuxuu war idin ku daalin waxaad ila daawataan muuqaalka hooyada Abshir Gaarane ay arrintan ku faahfaahinayso bismillahir rahmanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaali weyn waa idin salaanta islaamka idinku salaam waxaan nahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibana ah oo wiilkeeda ka xiran yahay oo yacni oo wax meelaas joogana aan ogeyn hooyo Soomaaliyeed oo dhibana ahaan nahay Soomaali weyn waxaa idinka codsanayaa wiilkaas oo si masabid lagu xirtay Abshir Gaarane Axmed fanaanki daada yaraay oo dawladda u ololeyn jiray oo calanka tunka ku sitay aan dhalay kaasaan dhalay waa la masabitay waa la dilay waa la xanuujiyay waxaas aheena laga keenay shabaab ma aha habeen ma ahan maalina ma ahan culimo diinka madaxda dawladda madaxweynaha Farmaajo ra'iisul wasaare Cali Khayre baarlamaanka waxaan ka codsanayaa inaan wiilkayga xuquuqdiisa waa la dhumiyay sharaftiisa waa la dhumiyay waa lagu ciyaaray waxaas aheena laga suubi waa la jir dilay waraas aheena laga keenay waxaan rabaa in meelaas ku jiro ma ogi maalintii waan xanuunsaday maantaan soo roonaaday maalintii masabidka beenta aan maqlay saan u dhacay maantaan soo roonaaday Soomaali haddaan nahay hooyo Soomaalideeda ah xanuunay haaya cunuga iga maqan waxaan ahayn korka laga saaray waxaan idinka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed oo sharafta leh madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre gudoomiyaha baarlamaanka culimo diinka Soomaaliyeed odayaalka Soomaaliyeed ugaasiyada in la kaco cunugayga li raadiyo xuquuqul insaanka in la istaaga ayaan rabaa cunugayga xorriyadiisa gadaal iigu soo celiyo dambi been ahaa la saaray oo xoog lagu saaray oo la jir dilay oo laga hadashay ma ahan shabaab weligiisna ma noqonin mana noqon doono dawladdaas calanka u waday calanka Soomaaliya sugan yahay waa ku seexdaa waa ku soo kacaa Farmaajo Abshir calanaas kuululay maalinta lagu saaray qoortaas kuugu wad habeenii maalinaas ku taagnaay waa ku taageersanahay cunugayga xuquuqdiisa in loo soo celiyaan rabaa meel kuma sheego in lii soo daayaan rabaa xuquuqdiisa loo soo celiyaan rabaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed shabaab ma aha habeenna ma aha maalina ma aha waxaan rajaynayaa inaad daawatay muuqaalka hooyada Abshir Gaarane run ahaantii waa beer wax dhalay waa hooyo waxaan leenahay waan kula damqahaynaa hooyo haddii wiilkaaga uu dambiile yahay sharciga ayuu mari doonaa hooyo laakiin haddii laga qaldan yahay marnaba suurtagal ma aha dadka Soomaaliyeed oo indhahooda shan yihiin in hortooda qalad loogu xukumo wiilkaagu waxa uu mari doonaa maxkamad si cadaalad ah ayuu mari doonaa kulley maxkamadda markii la soo istaajiyo
ayuu qiran doonaa laakiin qiraal uu ku dhex qirtay xabsiga dhexdiisa taasi ma u noqon doonto mid marmarsiyo ah dowladda waa inay wax caddeyn la imaadaan maxaa yeelay cid aamini karta ma lahan maadaama qofkani iyagu ay gacantooda ku haysteen waxay doonaan ay uga hanjabi karaan waxay doonaan ay ku samayn kareen laakiin qofku markuu maxkamad si xorriyad leh u soo istaago ayaa afkiisa wax uun looga qori doonaa laakiin waxa ka horreedo u malin maayo in wax loo qori doono dhanka kale al-shabaab ayaa iyana hore u shaaciyeen inuusan ka tirsanin abshir gaarana ururkooda arrintaas ayaana dad badan shaki weyn ku dhaliday waxaana la aaminsan yahay in arrintani wax uun ay ku dhex jiraan hase yeeshee warkii jira wuu iska imaan doonaa haddaba daawadayaal inta aan warbixinteeda kale ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo haddii ay tahay booqashadiinii ugu horreeyday ee janaalkeena aad soo gashaan fadlan ha ilaabin inaad subscribe saartaan si ayna idiin dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino mahadsanidin